deeqda raashinka ee loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan qoysaska Soomaaliyeed ee ku nool degmooyinka gobolka Banadir ayaa maanta laga qaybiyay degmooyinka Kaaraan, Shibis, Yaaqshiid iyo Hiliwa. Qaybinta deeqdan ayaa loogu talagalay in ay ka faa'iidaystaan qoysaska ku nool degmooyinka gobolka Banadir iyada oo la gudanayo waajibaadka bisha barakaysan ee Ramadaan. Barnaamijkan ayaa qayb ka ah barnaamij loogu magac daray Afuri Walaalka oo ay iska kaashanayaan shirkado, ganacsato iyo culimo Soomaaliyeed. shirkadda isgaarsiinta Hormuud oo qayb ka ah barnaamijka Afuri Walaalka ayaa sidoo kale xubno mas'uuliyiin ah oo ka tirsan shirkadda waxay maanta tageen goobaha lagu qaybinayay deeqda raashinka ee la siinayay qoysaska ku nool degmooyinka gobolka Banadir. Cabdullaahi Nuur Cismaan, gudoomiyaha Hormuud Foundation, ayaa ka hadlay xarunta degmada Shibis ee gobolka Banadir halkaas oo maanta deeq raashin lagu qaybiyay. waxaase uu ka warramay in hawshan looga faa'iideynayo qoysaska ku nool guud ahaan degmooyinka gobolka Banadir. qoysaskan maanta kaalmada la soo gaarsiiyay degmada Shibis waa ilaa 400 oo qoys ayada oo degmooyinka Kaaraan, Hiliwa iyo Yaaqshiidna min 600 oo qoys la gaarsiiyay raashin oo sidaan oo kale ah. raashinkaas waan rajaynaynaa insha Allah taala inay ku moodaan bisha barakeysan ee Ramadaan. waxaan rajaynaynaa inuu Ilaahay u barakeeyo sidoo kale waxaan ugu baaqaynaa dadka Soomaaliyeed meel kasta ay dunida ka joogaan inay ayagana gurmadkaas gargaarka qayb ka noqdaan. Sheekh Bashiir Axmed Salaad oo ah gudoomiyaha hay'adda culimada Soomaaliyeed isla markaana qayb ka ah guddiga culimada ee ka qayb qaadanaya barnaamijka Afuri Walaalka ayaa soo dhaweeyay tallaabooyinka lagu tabarucayo qoysaska danta yar ee ku nool degmooyinka gobolka Banadir iyada oo la eegayo fadliga bisha barakaysan. sida maqlayseen barnaamijkan wuxuu qayb ka yahay barnaamijka loo yaqaano Afuri Walaalka kaasoo iska kaashanayaan culimo iyo iyo ganacsato oo la go'aansaday taqriiban in la afuriyo bishan 10,000 oo qoys insha Allah taala. waanoo bilaabatay maalintii Khamiis waxaan afurinay degmooyinka kala ah Xamarweyne iyo Shangaani iyo Cabdilaaziz iyo Boondheere. maanta waxaan afurinaynaa degmada Shibis iyo Kaaraan iyo Hiliwa iyo Yaaqshiid. Maxamed Xasan Maxamuud, kusimaha gudoomiyaha maamulka degmada Shibis ee gobolka Banadir, ayaa dhankiisa sheegay inuu soo dhaweynayo qaybinta deeqdan maadaama dadka ay gudanayaan waajibaadka bisha barakaysan ee Ramadaan xilliga loo baahnaa qaybinta deeqda raashinkana lagu soo beegay. waxaan aad ugu mahad celinaynaa maanta kaalmadii la keenay degmadeena oo ahayd Afuri Walaalka taasoo cadadkeeda 400 oo qoys. waxaan noo keenay majmac culimada iyo hay'adda culimada iyo ganacsatada. waxaan leenahay waa mahadsantihiin waqtigeedii keenteen intaan inka badan waa rajaynaynaa. maalmaha soo socda ayaa la filayaa in sidaan oo kale degmooyinka kale ee gobolka Banadir loogu qaybiyo raashinka loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan qoysaska Soomaaliyeed ee ku nool degmooyinka gobolka maadaama ay gudanayaan waajibaadka bisha barakaysan ee Ramadaan isla markaana bishan ay tahay bisha khayrka ee Allah uu waajibiyay. Umar Maxamed Soomane, Universal TV, Mogadishu.